xubin ka tirsan jirka haweeneyda raggu hadday taabtaan isla markaas jeclaanayso mataqaanaa oo ragga in badan ka mid ah fahansaneen. Waxaa la dhahaa waa xubinta ugu fudud ee lagu kasbado haweeneyda inay ku jeclaato walow ninkaas xoolo haysan ama faqiir iska ahaado. Hase yeeshee xubinkaas hadduu galo ama taabto haweeneyda si dhab ah u jeclaanayso, haweeneyda waxaa la sheegaa inay tahay aas-aaska ama goldhiga bulshada. Sidoo kale waxay tahay haweeneyda meesha maskaxda bulshada kasoo aas-aasanto, waxayna ka mid tahay haweeneydu makhluuqaadka kuwa ugu fadliga badan oo ugu wanaagsan taariikhda adduunyada intay soo jirtay. Xaalado kala duwan ayay haweeneyda soo martay. Ilaahay baa abuuray rag iyo dumar si midka kale u dhammaystiro. Ilaahay baana u fududeeyay aalado ay isku soo jiitaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u fududeeyay wadooyin ay u maraan si ay u samaystaan nolol qurxoon oo u aas-aastaan intii adduunyadan ku nool yihiin. Sharaacida Ilaahay soo dejiyay dhammaan waxyaalihii ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa si loo nidaamiyo calaaqadaha iyo xiriirka ka dhexeeya rag iyo dumar oo loo wanaajin lahaa oo awoodooda iyo waqtigooda ugu bixiyaan raaligelinta Ilaahay iyo wixii loo abuuray. wamaa khalaqtul jinna wal insa illa liyacbuduun. Sidaas oo tahay haweeneyda uma baahna wax weyn ama wax mucjiso ah ama hadal la isku dardaray oo la qurxiyay oo gudihiisa eber yahay si ay ku fahanto. Ninyahow, haweeneyda kama rabto hadallo waaweyn oo isku xirtid ama mucjisooyin inaa u keentid iyo hadallo la qurxiyay laakiin uurka ka maran inaa u keento si ay ku fahanto. Haweeneyda kama rabto hadallo noocaas ah, dhaqanka noocaas ah ka dooni mayso, laakiin adi waxa is leedahay waxaa la imaataa falsafo iyo erayo la isku xirxiray si aad u fahantid tilmaamaha haweeneyda si aad u soo jiidatid. Laakiin waxaas kama rabto. Waxay ka rabtaa waxa weeye caqli fikraya inaa yeelatid, qalbi wax garanayana inaa yeelatid, wacyi aragtid dheer lehna inaa aragtid. Intaas bay ka doonaysaa. Waxaase isweydiin mudan xubinka ugu weyn ee ugu badan ee haweeneyda aad ku soo jiidan kartid muxuu noqon karaa ee aad ku kasban karto haweeneyda inay nafteeda ku dhiibato. Xubinkaasna waxa waaye qalbigeeda. Ninku hadduu taabto qalbigeeda ee uu gaaro haweeneydaas qalbigeeda isla markiiba way jeclaanaysaa. Marka qalbigeeda si xaqiiqo ah haddaa u soo taabatid haweeneyda way ku jeclaanaysaa walow xoolo yaadan haysane. Waxayna noqonaysaa mid ka daba dhacda ee ninyahow maskaxdaada ka shaqaysay qiyaaliga iyo beenta iska daa iyo dhalanteedka aad ku nooshahay. Qalbigeeda ha burburin, qalbigeeda ha dhaawicin, sababtoo ah qalbiga waa sida muraayad camal. Haddaad jebisid sidii hore kuma soo laabanayo. Oo marka qalbigeeda ha ka garaafeyn oo u naxariiso. U ilaali qalbigeeda. Haweeneydaas weligeed kuma hilmaamayso, weligaana way ku jeclaanaysaa. Haweeneyda ma rabto inaa u dajiso hadallo aad isku aadisay inaa ayada ku khiyaanayso doonaysid ama geeraaro ama erayo kale inaa isku dudoodid oo aad u qaadid haweeneyda si ay ku jeclaato. Intaa ka dooni mayso. Haweeneyda waxay doonaysaa nin qalbigeeda soo taabto iyo caasifadeeda iyo dareemaheeda. Kadib waxay dareemaysaa inaa adi noqon doontid qalbigeeda waxa kasoo burqanaya kii fahmi lahaa. Tusaale oo kale, ninyahow haweeneydaada waxaa u noqotaa mid dhagaysta oo weliba si wanaagsan u dhagaysta oo dhagta u raariciya, weliba hadalkeeda ihtimaam iyo muhiimad siiya. walow ha ka sheekayso arrimo adi muhiim ku ahayn laakiin dhagta u raarici si wanaagsanna u dhagayso. Ha ka sheekayso hadday rabto waxa adi qiimo kula lahayn laakiin ayada qiime. Markaas waxaa gaaraysaa inay ku jeclaato si degdeg ah. Hadhihin waxaas ka sheekaynin ee nagada ku qaado ee dhagayso. Hadhihin weligaa wax xun baa ka sheekaysaa. Hadhihin weligaa waxa qiimo lahayn baa ka sheekaysaa. Caqligaaga waa sidaas. Hadhihin dhagayso. Markaa dhagaystid dhagtana u raaricisid dareentana inaa muhiimad siinaysid walow waxay ka sheekaynayso wax yar ha ahaadaane way ku jeclaanaysaa. Qalbigeeda ayaa dhex degaysaa. Kadibna waxay noqonaysaa nafteeda inay ku siiso ay kugu kalsoonaato walow xoolo yaadan haysanin.